بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داوديال halkan waa TV Risaale Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caawa waa 25 bisha January sanada 2021 qodobadeenana waxa waaweyn dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay Bered Xaawo faahfaahin ka bixisay tariska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo shaaciyay khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay Bered Xaawo iyo sidoo kale dadku waxyeelada ka soo gaartay barnaamijkan ay taga bogan doontaan saaxiibayaal wakiilka qaramada midoobay beesha caalamka James Iswani madaxweynaha Puntland oo kulan yeeshay waxyaabay ay ka wada hadleen ayaan idin soo gudbin doona dowladda Soomaaliya oo ka hadashay xayiraadda saaran qaadka shuruudna ku xirtay in dalka qaad la keeno waan idin soo gudbin doona saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobo kale muhiim ah barnaamijkan kugu soo gudbin doona soo saarkii tabinta anigoo Bashiir Cabdiraxmaan shukri cadow ayaan kaga mahadcelinayaa kaamirada u diyaar garow barnaamijka dhacdooyinka saaxiibayaal habeen wanaagsan markale saaxiibayaal dhacdooyinka aan baqaadi doona hadii rabbi waxaan ku hormarayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay magaalada Bered Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamo taabacsan Cabdirashiid Janan wasiirka amniga maamulka Puntland ee kuwa xoogga dalka taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Taaliil Beexi warbaahinta shir jiraayad u qabtay ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii ka dhacay Bered Xaawo uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana saddex jeer uu dagaalku dhacay 12 duurnimo maanta uu soo gabagaboway taliyaha ayaa waxa uu sheegay in khasaare aad u baasan dagaalkaasi uu ka dhashay oo jiro khasaare soo gaaray dadka shacabka ah waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay dagaalka iyo waqtiga uu bilowday iyo sababihii keenay inuu gaaro 12 duurnimo dagaalka الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo dagaal xalay ka dhacay magaalada Bered Xaawo runtii waxaan ku tilmaami karaa waa ayaan daro dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada Bered Xaawo laba guri oo kamid ah waxa lagu dilay halkaas sargaal xigeenkii taliye xigeenkii ciidanka booliiska laba askarina waa lagu dhaawacay halka marka dagaal yar baa ka dhacay markii hore kadibna waxay galeen laba guri waxaan go'aan ku gaaray inta waaw ka bariyahayo inaan aan far la saarin waanu garan karay ama waaba iska garanay ujeedadu iyo dagaalku inuusan nimankaan ahayn ujeedku uu yahay inay ka yimaadaan jiha kale oo aan jihadaan ahayn oo u diyaar garoonay jihadii aan filaynay oo ku beeganayd xuduudda Kenya ama meesha loo yaqaano buurta ay ka yimaadeen abaarihii dagaalka waxay bilaabeen salaada subaxii markii la tukaday oo waagu si fiican u bariyay ay weerar halkaa ku soo qaadeen runtii muddo intaa ka horeysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aad uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay ayagii baa weerarka soo qaaday ciidanka iyaga uu samaysnaa difaac adagna ku jiray ayaa halkaas caabin xoog leh ku sameeyay waxaa ka dhacay khasaare aad u fara badan oo dhinacooda ah waxaanu qabanay maxaabiis fara badan maxaabiista laba qaybood bay isugu jiraan qayb xiriir nala soo sameeyay 3 bari 4 bari ka hor oo yiri annagu cadaaris baan ku jirnaa mana soo bixi karo waxaan u baahanahay haddii dagaal dhaco waxaadna ogaataan inaan soo baxsanayno oo chance aan helayno iyo qayb dagaalka lagu qabtay labadaba waa isugu jiraan laakiin waxaa aad u fara badan
qaybtii aan filaynay oo horey noola soo xiriirtay oo yidhi waxaanu helaynaa jaanis aanu isku soo dhiibno markii dagaalku dhammaado. runtii aad baan anagu u taxadiray. sarta ay galeen hormuud baa iska lahaa. waanu burburin karnay intaanu qaadano madaafiic iyo qoryo anti-taangi ah, laakiin waxaa noo muuqatay inay meesha ay ku jiraan ay tahay hanti ummadeed. waxaanu amar ku bixinay inaan la burburin sarta. hantida ummadda ayagaa ku gabanaya in la dhowro dadka shacabka iyo hantidaba in la dhowro. aad baanu ugu dadaalay. dagaalkii 3 jeer bay soo rogaal celiyeen. nasiib daro 3dii jeerba waa lagu jabiyey. dagaalkii wuxuu dhammaaday abaarihii 12kii duhurnimo ayuu si dhaba usoo afjarmay. ayagiina waxaa laga dhigay wax cararay iyo wax la qabtay, intaasay noqdeen, iyo wax dhintay, intaba waa isugu jiraan. waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo 2 qoys oo Soomaali ah oo madaafiicda cadowga soo tuurahaya ay ku dhacday inaan u tacsiyeeyo. ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan, hadduu ahaan lahaa biliis, asluub, xoogga dalka nabad sugid, intaba inaan u tacsiyeeyo wixii khasaaraha gaaray, dhaawac iyo dhimashaba wixii gaaray inaan u tacsiyeeyo. dhinac walba oo Soomaalida meeshaas dadka shacabka ah ilaa hadda 8 qof baa naloo soo gudbiyey oo 2 guri ah oo 2 madfac ay ku dhuftay u soo gashay, ayagoo ay soo tuureen. ayagana waa u tacsiyeynaynaa, weliba caruur ay ku dhinteen. guud ahaan dagaalkii halkaa ka dhacay, waxaan rabaa inaan ciidamadii geesiyaasha ahaa isugu jiray, hadday gorgor ahaayeen iyo hadday guutada 10aad ahaayeen iyo hadday daraawiish iyo asluub iyo nabad sugidba ahaan lahaayeenba, inaan idhaahdo waa mahadsantihiin, hambalyo, waad guulaysateen, waddankiinaad difaacdeen, dhiiggiinni baad u hurteen, waa ku mahadsantihiin. insha allahu abaalmarinteedana haddii ilaah yidhahdo waa idin siinaynaa. waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa dagaalkaas inuu soo afjarmay, magaalada Beled Xaawo ay nabad tahay. haba yaraatee hadda wax saansaan colaadeedu aysan ka jirin. ganacsigiina uu si toosa u furmi doono insha allahu, iyo socodkii bulshada. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay isla dagaalkan. waxa uuna sheegay in maleeshiyo Kenya ay ku tababaraysay gudaha dalkaasi Kenya ay soo weerareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku sugan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, taasi oo sababtay khasaare soo gaara dad shacab ah. wasiir Dube ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guulo ka gaareen dagaalkaasi, isla mar ahaantaasina aysan sameynin dhibaatooyin ballaaran oo la rajeynayay in dagaalkaasi ay ka dhasheen. ciidankan ay aada u taxdireen. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya ayaana digniin u diray dowladda Kenya, waxauna dusha ka saaray dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo in laga soo abaabulay gudaha waddankaasi Kenya. maanta oo bisha January ay tahay 25 2021 waxaa halkan aan isugu kin yeedhay haddaad tihiin bahda warbaahinta guud ahaan, warbaahinta qaranka, warbaahinta gaarka loo leeyahay, dhammaantiin inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayto lagu soo qaaday dalkeena. xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya Defence Force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee baryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakulaysay, ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taas oo ku noqonaysa dhabar jab iyo qaran jab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda. waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 in ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay. laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa qori dhacayee oo wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawirro. laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray. waa tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay amniga magaalada Muqdisho. shir ay yeesheen wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale iyo taliska booliska Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shirkaani shir gudoomiyay waxaana laga hadlay xaaladda amni darre ee ku soo korortay caasimadda iyo guud ahaan dalka. wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay taliska ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala gedisan waxaana saraakiishu ay la wadaageen sida ay xaaladdu haatan ay tahay. wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulanka amniga ay ku yeesheen Muqdisho. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. maanta waxa aan kulan kula yeelanay xarunta booliska Soomaaliyeed taliyayaasha iyo taliyayaasha hoggaanada. qorshaheenu waxa uu ahaa in aan xog wareysi ka samayno qorshaha 2022 sanadkan maadaama howlo badan ay dhici doonaan howlaha doorashooyinka iyo diyaar garowgooda iyo guud ahaan amniga magaalada Muqdisho in la qiimeeyo qorshaha ku aadan iyo sida wax looga qabanayo la iska wareysto dhacdooyinka qaarkood oo ay u badan yihiin oo miinooyin iyo waxyaabo soo noqnoqday tala laga yeesho arrintaas ku saabsanaa. marka hoggaanada waxaan ka dhageysanaa warbixino waxaan ku gubaabinay in laga howlgalo oo la badiyo joogitaanka booliiska ee jidadka xogta in la qaybsado iyo in ay jirto wada shaqayn guud oo dhex marta ciidamada qalabka sida guud ahaan. arrimahaas ayaa si wanaagsan looga hadlay. waxaana muuqata in qorshe isku toosan oo wax looga bedeli kara ay meesha yaaleen. marka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan amnigeeda ayada iskale sidaan hore uga hadalnay. waxqabadka iyo wada shaqayntuna waxay ku xiran yihiin sida bulshadu ay ula shaqeyso ciidamada ammaanka. marka mar labaad sida waxaan kula dardaarmaynaa ciidamada ammaankuna inay shacabka saaxiib ka dhigtaan. shacabka la'aantiina wax la qaban kara ma jiraan. shacabkana waxaan uga baahannahay in ay ciidamada la shaqeeyaan wixii culays oo ka soo gaara oo dulqaataan. mararka qaar haddii ay dhacdo si aynan habboonayn qaab wanaagsan oo aan caadifad iyo cara lahayn ay uga falceliyaan waxa loo taagan yahay waa nabadooda. qof walba oo shaqo ku jirana qalad uu geli karaa laakiin qaladkaas waxaa loo baahan yahay si dulqaad uu ku jiro in looga falceliyo oo cara iyo fal aan laga fiirsan inuusan ku badan bulshada. marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ciidamada amnigu iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo u taagan danihiisa iyo ammaankiisa. waa tahay dhanka kalena xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay sababaha ka dambeeya in qaadka ka imaan jiray wadanka Kenya uusan wali dalka si toos ah u imaanin iyo sababaha xayiraadaasi ee dul saaran. wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin qaad xayiraad ay saaran tahay balse la isku afgaran lahayd habka wadanku ku soo galayo. waxa uu sheegay in hab sharci ah loo baahan yahay in dalka qaadku ku soo galo. wasiir Beyle oo warbaahinta shir jiraad u qabtay Muqdisho ayaan arrimahaasi ka hadlay. waxaan halkan ka cadeynayaa runtii
inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa wey jaadka cidna uma xidhna jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh ee dadka Soomaaliyeed quutaan anuu quudkuma sheegay qaade ay quutaan ee ay damcaan inay dibadda ka soo dhoofiyaan bariis baan soo dhoofsanaa galley waxaan soo dhoofsanaa baasto digaagadaan soo dhoofsanaa hadhow waxaan ku xigi doonaa muus iyo hilib hadhay in laynoo keeno wixii aan cunaynin oo dhan waxaan nahay dad damcay in dibadda looga keeno yaa anigu ma odhan kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay baastada hilib kale u xidhan tahay kaasina kaasuu xidhan yahay ma odhan karno jaadkuna waa saas oo kale waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kaleba ka ganacsada jaadka waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maray keliya macnaheeduna yahay haddaad doonaysa inaad qaadka ama jaadka nabas loo yaqaan ka ganacsato laysan baad soo qaad ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tagi ayaga nidaamka ku akhriyo doona waad soo qaadan dabeetana jaadkeen arinta kale ee aad mas'uulka tahay waxa weeye inaadan soo qarin jaad baa sitaa tiraahdo diyaaraddu jaad baa sitaa tiraahdo cid waliba ogaato jaad inaad sito jaadkaasi marka cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsan halka u soo mariso customka keento lagu cashuuro intaas waa laga rabaa laysan soo qaado qaadkana laga cashuuro sida waxyaalaha kala wadaan cashuurana wax inta dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed laga doonayaa ma jirto adigu marka ama diyaarad soo saar ama dameer soo saar ama awrka ku soo qaad ama la soo lugay mid aad doonto sameeyo jaadku waa furan yahay meesha doonto ka soo qaad waxaana loo baahan yahay marka nidaam baa leeyahay baahaya jaadka dadka ka baaya mushtaro sida arrimaha kaleba waxa idin fiican inay ishabaysaan oo idinku hagaajisaan kol hadaad wada kale wax ka soo iibinaysaan waxa idin fiicnaan lahayd taasina waa arrin idinka idin taalweey waxa idin fiicnaan lahayd in cidii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan hagaajiyaan oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan yaa ayaa sicirkeeni arrimihiina iyo negotiation-kiina waa dhib yaraanaya laakiin hadii jaantaa furan ay noqoto jaantaa rogan yaa midana waa idinka idin taalweey anaga wadan caawin karana waa idin caawinaynaa hadii jaantaa rogan noqoto oo dad oo dhan xagga tagaan qolada xagga joogta marka iyaga noqonaya price makers waxa la yiraahdo iyaga oranaya price-keega waa inta dabeetana waa idin kala badino price-ka cirka jooga ayaa nin wax soo qaado wada khasaari doonta kulli hadii dibadda ka soo iibsanayaan nidaam lagu socdo ayuuna uu idin la talina waa shaqtaalo laakiin baa mushtarigu kama xaraansana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan maadaama asloon waxaas ay yihiin wax xalaal ku soo galay xalaal ku socda sharci lagu soo iibsaday sharci lagu soo cashuuray ya intaasaan doonayaa maanta inaan idin sheego cidii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa wasaaradda maaliyadda ee Shangaani way iman karaan ya halkan committee baa ka samaysan guddi baa ka samaysan guddi khilaafaad wixii ah ee deegaan sharci ah xalilaysa ya cidna cid lagu qasbi maayo laakiin inta aan ku soo sheegay hadii cid ku diidaysa jirto inta aan soo sheegay cid diidaysa hadii jirto waa ku soo dhaweynayna halkan kaalay ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar labada iyo diyaar baan u nahay inaan wixii anaga naga khuseeya inaan kula xaliilo muwaadin Soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee beesha caalamka ee Soomaaliya Ambassador James Swan waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waran kulankooda waxay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida ay muhiim u tahay xal u helida khilaafaadka jira madaxweynaha maamulka Puntland iyo Ambassador James Swan ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulankooda uu lahaa waxaa maanta nagu soo booqday ergeyga gaarka qaramada midoobay qaabsan Soomaaliya Ambassador James Swan iyo wafdi ballaaran oo la socday oo UN-ka
qaybihiisa kala duwanaa ka mid ah. Wuxuu ahaa kulamadii caadiga ahaa ee marar badan ay noogu imaan jireen. waxaan ka wada hadalnay arrimaha howlaha ballaaran ee UN-ku hay-adihiisa kala duwan ay ka wadaan Puntland. runtii waxaan uga mahad celinaynaa shaqada ballaaran oo ay qabteen muddadii ay ka shaqaynayeen. waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa ergeyga gaarka ah kulankii gaarka aan yeelanay oo aan xoogga ku saaraynay sidii deganaanshaha Soomaaliya iyo horumarka la rajaynayo dhinaca siyaasadda hore loo qaadi lahaa, gaar ahaan arrimaha doorashada oo runtii ahaa arrimo maalmihii u dambeysay taagnayd. wax wanaagsan oo runtii muujin kara inay hore u sii socon karto in la helo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. sidoo kaleetana dadka daneeyaasha siyaasadda ee Soomaaliduna ay ka dhex arki karaan maslaxad Soomaaliyeed iyo mid loo siman yahay. waxaan rajaynaynaa kulamadaas oo weli socda inay iyaguna ay gaari doonaan meelo muhiim ah oo la rajaynaya in lagu wada qanco. waan ka mahad celinayaa kulanka iyo imaanshihiisa. waxaan rajaynayaa insha Allah marar badan oo kale inaan isku soo noqono ama aan meelo kale isku aragno. aad baan u mahadsantahay. saaxiibayaal barnaamijkii dhacdooyinka caawa intaas ayuu ku dhan yahay. Shukri Cabdi ayaan kaamirada kaga mahad celinaya. habeen wanaagsan.